السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنرال كيني فانول الجنرال وحي نيوز كسو كردي برنامجكي افن كلوك سيدا لا سعودين با عجلدي هور markan soo gelinay rubi saac kadib ayuu press conference qabstay premier road marka new corona matrexal uu ku soo kordhiyay waxa kamid ah maximum een persona la ogol yahay biso guriga hal qof laga bilaabo fan 520 January ayuu ka bilaabanay sharcigaas marka avant clot group ila yaraya group contact waxa kaloo la yareynaa minder contact in dadka xiriir sameeyaan minder toys bizook break bar in guriga xiriir dadka ay dad badan ku yimaadaan anagoo soo tagtagna Soomaaliya baasha hoosta loo dhigo had cabinet forbid cabinet waxay mar mamnuuceen further vanaf 23 January wixii 23 January ka bilowdo ook passagier vlucht uit het Verenigd Koninkrijk Zuid-Amerika en heel Zuid-Afrika. waxyaalaha mamnuuca waxaa ka mid ah head Verenigde Staten loo yaqaanay marka Verenigd Koninkrijk haddii la yiraahdo waa eragaas United Kingdom waa wadanka Ingiriiska South Africa iyo South America van 25 January 2021 banaanka haddii lagu arko marka half neeqa waxa ka dambeeyo ogow waxaad mutaysanaysaa butte ganaaxa lagu saaray 95 euro maximal bizuga toys la ogol yahay waa hal qof waqtiyadaas ka horna waqti la ogol yahay dadka xoolaha haysta ka waran eeyga iyo wax saas oo kale waxa la yiri og Mason House diire aan khilayda la ogol yahay idlaad banaankiina u bixin karaan meelaha qaar waxa ku arkay marka in dhalinyaradaas xarfaanimo sameyn eeyga isku bedelaan kuna u qado oo soo celiyo kan kale soo qoro arintaas waa la diiday asagana laakiin in loo bixin karo banaanka oo la soo wareejin karo ama meelihii ku soo saxaroonay la geyn karo hawadan uu soo qaadan karo dadka kale loo ogol yahay waxa kamid ah dadka Portland Rise dad inay safraan rabaan wadamadaas la soo sheegay Ingiriis South Africa South America aan ka ahayn dhammaantood South America lama kala reebin dhammaan isku dar qolooyinkaas Mohamval Obstrat dadka safarka marka raba inay Soomaaliya aadaan dadka raba Turkiya inay aadaan kuwaas marka jidka banaanka u soo bixi karaan laakiin qofkaas waxa la weydiin cadeyntiisa Soomaali tigidhkiisa keena la dhaho wala arki hada shaqo ku socotay shaqadii la arki in shaqada ka timid in kale wala qoran wala dabageli kabaniga magaciisa laga qoray ka bacdi wala wixii dabcan booliiska si uu xiriiran ama hand half ku wala dhaha jiro oo komitiyada la shaqeeyo iyaga arimahaas u xil saaran iyo inuu qofka maaragtay meedish reedin sabab caafimaad banaanka ugu soo baxday isbitaal baa ku socotay balan baa leedahay wax cadeyn sax inaad haysataa laga rabo marka intaas waa inta ku soo kordhay shir jaraa'idkiisii ku soo kordhiyay markan intan hawada ku kulmayno asxaabi waxay leeyahay ilaahay caafimaad hana siiyo culeyskan Allah naga qaado ilaahay maaragtay barsimaadkeeni shahal iska cabaayo oo bibitooyinka la aadayo oo asxaabta la booqanayo ilaahay noo soo celiyo waana nimcooyinka kamid ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo horena ugu galadaysto weynay ilaahan ka rajeynina insha Allah inuu tii noo soo celiyo meel kasta joogtaan ba asxaabay waxaan kaga tagay amaana